Rafinha oo shaaciyay sababta uu u diiday lacagtii waalida ahayd ee Sacuudiga. Xiddiga reer Brazil ee Rafinha ayaa shaaca ka qaaday inuu si aad uga dhawaa ka tagista kooxda Barcelona kadib markii uu helay dalab weyn oo ka yimid koox ka tirsan horyaalka Sacuudiga. Rafinha ayaa wareysi uu siiyay ESPN ku sheegay inuu dhab ahaantii helay dalab dhaqaale oo aad u weyn ku dhawaad hal sano ka hor, taas oo ku qasabtay inuu si dhab ah uga fikiro inuu bilaabo waayo-aragnimo cusub oo ka baxsan Yurub, maadaama uu dalabku ahaa mid soo jiidasho leh oo ku dhawaaday inuu ku riixo go'aanka bixitaanka. Ciyaaryahanka ayaa sheegay in fikraddaas ay si xoog leh maskaxdiisa u qabsatay, isagoo dareemay in waqtigu yimid si uu u helo khibrad cusub oo ka baxsan cadaadiska iyo jawiga Barcelona. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdu way isbedeshay markii uu wada hadal dheer la yeeshay tababaraha kooxda Hans Flick. Rafinha ayaa faahfaahiyay in Flick uu markii hore kula soo xiriiray wicitaan telefoon ah, kadibna ay fool u kulmeen intii lagu jiray xilliga tababarka ee ka horeeyay xilli ciyaareedka, halkaas oo tababaraha Jarmalka ah uu ku guuleystay inuu ku qanciyo sii joogista kooxda. Wuxuu intaas ku daray in wadahadalkaas uu dib u shiday rabitaankiisa iyo dhiirigelintiisa ciyaareed, maadaama uu dareemay kalsoonida iyo aaminaadda Flick ee doorkiisa kooxda, taas oo ku kaliftay inuu si rasmi ah uga noqdo fikraddii bixitaanka. Rafinha ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay isagoo leh in dalabkii ka yimid Sacuudiga uu si buuxda u bedeli lahaa mustaqbalkiisa dhaqaale iyo midka qoys, balse ugu dambeyntii uu dareemay in joogitaanka Barcelona uu yahay go'aanka ugu wanaagsan ee uu qaadan karo waqtigan xirfadiisa. Barqa wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.